dalkeena si noognahay maanta sagaal cusba total case waa 272 dhimashaduna waa 5 sagaalka maanta cusub 5 Addis Ababa laga helay halka 4 deegaankeena laga helay total case ka deegaankeena waa 28 afarta maanta laga helay afartuba waa rag ka koobaad waa 17 jir ka labaad waa 22 jir ka saddexaad waa 20 jir ka afraad 22 jir dadkani waa dadkii dib ugu soo noqday dalka ee Puntland ka yimideen ku jiray quarantine ka jigjiga weeyaan wax deegaanka gudihiisa ma jirin guud ahaan say noognahay ba qaybaha quarantine ku ee hadda dadka inoogu jira quarantine saydiyada waa 1974 waa 7 goobood ee dadka lagu ururiyo meelaha kale ee iyaguna interpointiyadeenu waxa weeye 28 interpointo qalabkii la geeyay halka 24 functional ka yihiin ka shaqeynayaan waxa jira meelihii suuqa loogu talagalay oo iyaguna aad sidii loogu soo noqday saameynta uu leeyahay inaynu aragno cudurkan inuu wali sii socdo sii faafayo taana shacabkii wali goobihii loo soo raray cusbaa meelay khudradda ay sidii un jaamus yihiin taana shacabka inay ka yar waantoobaan oo yar ilaaliyaan maadaama uu soo badanayo xanuunkii inay iyaguna aad uga taxadaraan maamulada guud iyo maamuladan waxaan kula dardaarmay emergency state-ki inay iyaguna hirgeliyaan oo iyaguna goobihii loogu talagalay kasto hadda guud ahaan aynu daba socono surveillance ku sameynayna dadkayna soo galay Djibouti buu ka yimid meel xuduud buu inaga soo galay dabagal wanaagsan oo bilow ah socda taana in la sii xoojiyo goobaha la sii wada xoojiye noqonaysa oo si adag loo xoojiyo dadka shacabkiina kulli ciid baa lagu jiraa hooyooyinka iyo dadka inay ka taxadaraan inay ciyalka soo wada qaadaan waxa ka muhiimsan inay ciyalka daadooda intay eegaan ay iyagu suuqa si loo fududeyn lahaa ay ugu tala galaan waa mid loo baahan yahay shacabku inay taa ka taxadaraan hadda meelaha ciida say noognahay ba uu isa soo taraya kulli waa dadkii ku xeereysnaa qaybta quarantine-ka jigjiga haddana waxa laga maarmaana si dheeri foojignaan dheeri in la sameeyo oo shacabku ka taxadaraan meelaha ururka meelaha la isugu imanayo meelaha goobaha ciyaaraha ciyalku ku ciyaarayaan kubaddo kale goobaha suuqa meelaha chat-ko kaleeto in laga taxadaro dadku nin waliba naftiisa ilaaliyo way fiicnaan lahayd si ay looga hortago cudurkan saameyntu leeyahay wali bulshadeena wax laga helay deegaan ahaan bulsho ma jirto haddana taxadar badan in la mariyo maadaama dadkii nagu dhex jiraan ka yimid meelaha dibadaha wali aan ku jiro sarfilaan ahaan aan sarfilaansiga wadno goobaha xuduudaha in meesha laga soo galayo socodka dadka lugta ku soo galayo kale iyo wadamada aynu jaarkanahay dadkii nooga soo gudgudbaya walaalaheena taa maadaama is dhexgal badan jiraan inay dadku aad wajaalana la tagay laga imanay inay dadku aad u taxadaraan